بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داوديال ميل بود joogtaan aadan maxamed salaad ayaa rahay Jubaland TV ayaad naga daawaneysaan barnaamijka xulka wararka oo xilligan oo kale Jubaland TV aad uga barateen u diyaar garooba qodobada ugu xiisaha badan ee barnaamijka xilligan aad ku hayana waxa kamid ah safarkii soo guuleystay ee madaxweynaha dawladda Jubaland ee dalka dibadiisa maanta ayuu soo afmeeray oo dalka dib ugu soo laabtay oo maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Kismaayo qodobada kale ee barnaamijka ugu xiisaha badan waxa kamid ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ee deegaan doorashadoodu ay tahay Jubaland ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Jigjiga ee dawladda deegaanka Soomaalida qodobada kale ee barnaamijka waxa kamid ah Raskamboni maanta waxa ka dhacay kulan muhiim ah oo ku saabsan arrimaha amniga deegaanka waa Raskamboni iyo deegaanada kale ee hoos yimaada kulankaasi ka qayb galay barnaamijka ayaan idinku hayaa waxa kale daawadayaal barnaamijka xulka wararka ee telefishinka dawladda Jubaland waxa kamid ah dadkii ugu badnaa ayaa lagu soo waramayaa in abaaruhu ay si weyn u saameeyeen iyadoona dadkii ugu badnaa iyo xoolo tiro badan oo aynu deegaanadii abaaruhu ay ka dhaceen aynu booqanay oo TV-ga dawladda Jubaland uu booqday ay sheegayaan in ay saameyn xoogan ku yeesheen waxa la arkayaa xoolihii ugu badnaa iyo dad markaasi gacmaha ku sita xoolo dhintay oo la sii hayaamaya barnaamijka xulka wararka ayaad ku daawan doontaan haddii baqadaro faahfaahin dheeraada oo ka soo baxaya abaarahaasi ku dhuftay deegaanada Jubaland anigoo aadan maxamed salaad ee barnaamijka isku soo dubraday halkan idinkala socodsiin doona ku soo dhawaada mar kale barnaamijka xulka wararka ee telefishinka dawladda Jubaland waayahay imikana haddaan gudaha u sii galno barnaamijka oo markaasi injineer Cabdifataax uu farsameynayo barnaamijka haddaan gudaha u sii galno magaalada Jigjiga ee dawladda deegaanka Soomaalida waxa gaaray wafdi ballaaran uu hogaaminayo xildhibaan Maxamed Sheekh Nuur oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka ee dawladda Jubaland kasoo deegaan doorashadooda ay tahay ee dawladda federaalka ee Soomaaliya xildhibaan Cadar ayaa sidoo kale wafdiga qayb ka ahayd waxaana wafdigan si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Jigjiga ee xarunta dawladda deegaanka Soomaalida xildhibaanadan oo deegaan doorashadooda Jubaland ay tahay ee ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa marka ay raadeen waxa ujeedka safarkoodu uu yahay sidii ay kulamo gooni ay ula yeelan lahaayeen qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka iyo sidoo kale mas'uuliyiinta maamulka dawladda deegaanka ee Jigjiga markii ay gaareen halkaasi waxa soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada magaaladaasi xildhibaan Garaad Maxamed Sheekh Nuur Cismaan oo goobta ka hadlay soo dhaweyn uga mahadceliyay dadka deegaanka ayaa goobta ka hadlay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta waxay nabad nimid magaalada Jigjiga waxa halkaan ugu soo dhaweeyay madaxdii dawladda federaalka iyo dawladda deegaankaba isku jiray wasiirro iyo xildhibaano iyo salaadiintii deegaanka halkaan waxaan u nimid safar shaqo insha Allah taala maalmadan si joogi doona waxaan aad ugu faraxsanahay soo dhaweynta qiimaha leh ee inoo sameeyeen dadka magaalada Jigjiga gaar ahaan kuwa ehelka ah waa mahadsantihiin waynu kala mudanahay soo dhaweyntaasna dee wax la isku leeyahay waa insha Allah taala waxaan kaloo aad u amaanayaa nabadgelyada ka jirta deegaankan guud ahaan Ethiopia gaar ahaan deegaanka Soomaalida waxaan idinku boorinayaa inaad dawladdiina adkaysataan ku dadaashaan nabadgelyada madaxdiina aad garab istaagtaan dee waad dareemi kartaa mataantiina Soomaaliya dhibka ka jiro muddo la daalaa dhacisay inkastoo hadda sidoo hore wax dhamaan idinkana waxa idin rajaynaynaa Ilaahay idinkiis inaad amniga aad sugtaan amniga waa muhiim waa 1 2 3 kadib iyaan wax kala la helaa waana mahadsantii wayna wada joogi doonaa ayaamo wayna suuraysan doonaa wayna kala xoqaan doonaa aad baan ka mahadnaqay assalaamu alaykum waraxmatullaah waayahay markana dhanka abaaraha aynu eegno dhawanahan waxa isa soo tirayay qeyladaanta ka imaanaysa mas'uuliyiinta dawladda Jubaland iyo sidoo kale dadka danyarta ah ee ku nool gobolka dadkii ugu badnaa ayaa abaaruhu ay si weyn u saameeyeen oo deegaanada Jubaland kamid ah telefishinka Jubaland oo ku galaya xaalad dadkaasi ayaa maanta dul tagay dad markaasi xooluhu ay ka dhamaadeen misna gacanta ku sita xoolihii ka dhintay ee galbeedka magaalada Kismaayo tuulooyinka xorta ah ee ku yaala galbeedka ayaa la arkayaa xoolo aad u tabaalaysan oo la daala dhacaya oonka haraadka iyo sidoo kale kuleelaha gobolka ka jira dadka deegaanada ayaa ku sheegaya in xaalad aad u adag oo bani'aadanimo ee ka jirta galbeedka iyo meelo badan oo Jubaland kamid ah waxaana markaasi indhaheennu ay qabanayeen dad markaasi iyo xoolo dhaqato aad u tabaalaysan kuwaas oo ku sheegaya in aysan haysan biyo ku filan waa kuwan qaar kamid ah haween deegaankaasi aynu kula kulannay
oo Jubbaland TV u warramay kuwaas oo ka warbixinaya xaaladda hadda ay ku nool yihiin. الرحمن الرحيم walaalihii waa in salaameynaa salaamta sharafta leh anaka abaaraan heeso baahiyaan heeso abaar xunaan heeso dad iyo duunyaba waa biyo la'aan waa baad la'aan meeshaan aan ku rafaadsanahay inta ka soo dadka muslimiinta waa inay noo kaalmeeyaan inuu waasiciyaan waxna siiyaan noo soo gargaaraan inuu ilaahay iyakana u gargaaro وأدني آخر إلهي تام وقدر وإن تكرجار دق إلهي نلسه لجارسي أباهنا هاي هون عنا هاي باهي عنا هاي صدق يدوي سيب الدنيا سائد بين وقت ما توا أركت عن بارك عنا هاي ستة رباطة عنا هاي ستة إلهي وإنت كسكان مسلمين دولة دين شرفت له إن نجسوا جرجارت يعني هم مسلمان وإحنا سيان أباهنا تترفعنا بيها انت نوجود واحد وين مرنا ولا هلا هالك دولار مرنا ولا وايا يومي فوست بيها نقوم فيلنا أو مدت كيات سينا ساعة مسدوية كيات سينا ساعة رفادي سلعهم قمنا باهين بو هرت حوالي ولا ماله أو دت كي على سينا عروتي على سينا حوالي ولا هكرنا بيرداف نحوم عين كران أون حم بانا هاي مسلمين هنوسو غرغارتو إلهي أو غرغاره ها ودبات عافماد لا كلنا خوليا نوغل ليday ilbihi oona haay rafaadka booska borka kacayso maarag dar uma dhaqan karno uma qabaysan karno raashin uma karsan karno waxa laga yaabaa biyo raashin ku karis inaad weys foosta biyaad keenay ma xoolaad siini madadaad uu qabayni inteed la aadi xarun caafimaad alla boorka nooguma sokoyso aan u tagno xarun caafimaad ma heysano dugsi ma heysano iskuul ma heysano caafimaad meel u aasana ma heysano dugsi xataa ilma ay kugu jiraan ma heysatid markaas awaar xun baan ugu heysatay beesh noo soo gargaar in ilaahay inii gargaaro wax saa'id oo ma qabno sidoo kale hadda markaan qof naga foolato ama qof naga xanuunsato baracle ma moodi karna habeen madow inaan qofka inuu dhinto inuu ilaahay noo badbaado taas leewaay ilna ma qabno sharci saas noocaas oo meelaha qaar aan ku moodno sidoo kale hadii meesha xoolaha baoon iyo waxaan uga dhamaanaan baahi awaar waa arkaysaa busto socoto dadkan sidoo iska dhiban yihiin caafimaad ma haysano oo ma haysano iskuul oo biyo noo dhow ma haysano hadweyn ka soo ma arkayno biyo taas waa dhibkeena heedna wax noo qabata rajeynayna iyo dawladda baracaan sidoo noo gudbin lahaa madow ama goob caafimaad inoo furto waa tahay daawadayaal kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka danyarta ah ee abaaruhu ay saameeyeen ee galbeedka magaalada Kismaayo ku nool kuwaas oo maanta telefishinka Jubbaland halkaas uu ku booqday gudoomiyaha deegaanka ayaa dhankiisa sheegay in abaar ba'an ay ka jirto deegaanka xoolo tiro badanna ay ku dhinteen abaarahaasi bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ka hadlayaa abaaraha ka jiro wadanka waxaan joogaa xaafadda Gabanow xaafadda Wadajir gaar ahaan Gabanow waxaan haysataa abaar ba'an oo aad iyo aad u kuleyl badan dad iyo duunyaba siiba duunyadii waxaa noogu daran biyo 3 bilood kareeto baan biyo ku dhaamin dameer biyo ku dhaamin maalina la helaa maalina la waayaa ilaahay baan baryaynaa waxaan dawladda maamulka Jubbaland iyo hay'adaha Soomaaliya u sheegayaa in la ka soo gaarsiiyo biyo la'aan ba'an hayse waa codsiga maamulka ilaahay horta wax waliba ilaahay qaadi kara laakiin gargaar bini'aadanimo waa u baahannahay oo biyo u badan waxaan rabnaa maamulka iyo hay'adahaba inay naga soo ogaadaan ay naga war haayaan dalka Gabanow waxaan joogaa xaafadda Laboorka Gabanow waaxda oo Wadajir abaartu waxay noo saameysay markii xoolihiina waa dhamaadeen waxay dadka aan siinayna xoolihii aan siinay oo mug hore aan maaqnay xoolaha bal ku badbaadsi raashinkii dadka uu cunay oo beeraha ka baxay biyo lama haayo 3 bilood dameer aan maalina fuusto lagu dhaamay maalina waa loo yahay fuustada $1 aan la ka siiyaa fuustada ma waxay aad noo yimid maarag fuustada $1 aan la ka siiyaa hadweyne maalina $1 aan weynaa maalina waa helnaa xoolihii dadkii qaar koor xoolo $1 waa ka badan yihiin $5 ay cabayaan
iyo $6 aad iyo aad ay u dhamaadeen godka hadda waxa lagu riday waa aragteen waa soo aragteen waxa duurka ku dhinto ayuu ka socdo laga soo tagay waa yaabe marka abaar xun baa jirto oo nos aad iyo aad noo saameysay waayahay kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha deegaanka ama deegaanada ay abaaruhu saameeyeen ee galbeedka magaalada Kismaayo oo telefishinka dowladda Jubbaland la hadlayay haddaba abaarahaasi baahsan ee gobolka ku dhuftay ayaa waxa ay ku soo aadayaan xilli roobabkii dayrta la filayay in ay gobolka ka da'aan oo markaasi soo daahay taasina waxay keentay in kuleylka oonka iyo sidoo kale haraad ka jira gobolka uu sii kordho xoolo badan ayaa biyo la'aan dhimanaya sidoo kale waxa ay abaartan saameysay dadka reer guuraagaba ha u badnaadeen iyo sidoo kale dadka tuulooyinka degan kuwaas oo ku sheegaya marnaba inaysan haysan biyo ku filan iyo sidoo kale goobo markaasi ay xooluhu biyo ka soo siiyaan waxaana xaaladda markaasi aad ay u saameysay dadka reer guuraaga iyo kuwa degan dhulka miyiga ama tuulooyinka iyadoona lagu soo warramayo in ay dadkaasi baaq u direen dowladda Jubbaland si ay dadkaasi gargaar bini'aadanimo ugu yaraan biyo dhaamin loogu helo waxaana arrintan ku soo beegantay xilli dhawaan ama bishan aynu ku guda jirno horaanteeda ay dowladda Jubbaland baaq degdeg ka soo saartay abaaraha kulul ee sii xoogaysanaya ee ku dhuftay gobolka iyadoona hay'adaha deeq-bixiyaasha loogu baaqay in dadkaasi ugu yaraan biyo dhaamin lala gaaro waa tahay daawadayaal waxaa la soo gaaray guntii iyo gabagabada barnaamijkeennii xulka wararka oo anigoo aadan maxamed salaad aan isku soo dubraday halkan idinkala socodsiinayey injineer cabdifatax rabiic ayaa dhanka farsamada barnaamijka iga caawinayay tan iyo kulanti dambe waa aadan Kismaayo idin leh nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu